مدن مدحوينه waxaan ku leeyahay gobolka Sanaag uma baahna handaraab imika la saaray hore u handaraabna haddii xaaladan ay tahay markii la soo rogayo muddo 3 sanadood gobolka Sanaag degmada Ceelaf Weyn wax ka socday dagaal ehli qabiili ah way ku dhinteen dad ka badan 200 oo qof xilliga ayay u baahnayd in lagu soo rogo xukun military maanta way 2 nin oo quli ku dhinteen gobolka maxallow gobolka Sool ka tirsan ayaa gobolka Sanaag lagu soo rogayeen xukun military waxaanu qaadan karno maaha madaxweyne taasi waana si degdeg ugu noqotaa gobolka Sanaag uma baana xukun military haddii xukunka military ee gobolka Sanaag waa mid lagu khaldamay raalina kama nihin mana aqbalayno mudane madaxweyne waxaanu ku leeyahay si degdeg uga laabo go'aanka uu soo saaray Muuse Biixi waxaanu leenahay waa ka soo horjeednaa sababta oo ah ceergaabo maxay dhintay maxay geysatay maxay bandooda maalin rabadaana waa soo galaysaa maalintiina bando ilaah baa saaran habeenkiina bando aadane ma qaadi karto laakiin gar adag bay ku xitaa Ceelaf Weyn baan xaq u lahayn in la saaro bandooda degdeg ay la saaray gobolka Sanaag waxaan u aragnaa xaalad abuur in la sameeyo meel aan beel ka jirin oo beel laga abuurayaan u aragnaa dhulka u baahan baa wax kaga qabto waana dhici jireen oo dhulka waxa ka dhici jiray dagaal baa ka dhici jiray Ceelaf Weyn hadda ka hor waxa ku dhintay ilaa 60 nin wili lama soo saarin xaalad degdeg ah iyo ciidan wax ka qabta midna lama keenin maalaba sarkaal oo laascaanood ku dhigtay ba xaalad abuur looga dhigay xaalad degdeg ah loogu soo horgeeyay gobolka Sanaag ama degmada Ceergaabo ciidda dhibta geysatay ee maxaan ku yiraahdaa saraakiisha dishay waa loo yahay meeshay joogaan meesha lagu dilayna waa loo yahay dawladda ha ka raadsato laakiin meelan beel ka jirin beel ka abuurin bandowdan Muuse soo rogay xaq waxa maaha wax sharciyana maaha madaxdu waxay uga soo indhaqarsanayso in kaahin Ceergaabo ugu soo riixayo oo waxaanu yaabnay oo aan naga degayn arrintaana madaxdu haddii ay ka noqon weydo anigoo shacabka Ceergaabo ka mid ah shacabka Ceergaabo wuxuu u goosan doonaa dhul ay dawladdu hadhow ka sheekayso annagu waaba yaabanay dhulkan abaaraha darxumada haysata xoolii ku madheen dhirtii qallashay dadka dhibaatada haysata ay yaabanahay wax bandowda lagu soo rogay waa mucjis iyo cuna qabatayn iyo baabi'in arrintaas ninka ku dhawaaqay Muuse la yiraahdo dib uga noqdo gobolka Sanaag ceeb iyo colaad midna ma qaban nabadgelyo haysta isagu colaadii ku abuurin xaaladda degdega dhulka u baahan hageeyo intaasaan anigu leeyahay baamta la saaray madaxweynuhu saaray arinta gobolku ma aqbalayo gobolku abaar baa haysa dadku horu u liitay dadku wax ma galabsan wax ma layn reer Ceergaabo waxna ma dilin dawladana waa dadka soo saaro diyaar ku ah dawladda hadii Ceergaabo isnacsiinayso doonayso inay dib ugu soo noqon dawladdu annana taasaanu qaadan waxaan saleenahay intaan halka la gaadhin oo aanan halka ku fogaan baamta la saaray halka Ceergaabo ma aqbalayno TV-ga Star waa salaamaya haddaan ka hadlo xaaladda degdega gobolka lagu soo rogay waxaan u arkaa gef laga galay shacabweynaha gobolka Sanaag gef weyn oo laga galay mana geeyaan gobolka Sanaag haddii taas sii socoto baarlamaanka waxaan leenahay golaha arrintaas ka jooga diida marka haddii taas socotana gobolka Sanaag waa tashanayna maanta waxa laga filayo horumar iyo waxqabad inaad qabatid gobolada barigana markaanu nahay gaar ahaan Sanaag waxaanu nahay gobolada Somaliland dibadhucu ku yimi dibadhacana waxa noo keenay wax weeye dawladda Somaliland 28 sano Somaliland dhisnayd wax loo qabtay gobolka Sanaag oo horumar oo muuqda ma jiro waxaan anagu leenahay xukuumadda aad baanu idin cambaaraynaynaa maanta waxa aad nagu soo rogteen aad tiri 3 bilood ayaa bandow degdeg la saaraya xukun matiraada siyaad baraacidna ku haysan waayay awal bandow waad ka saartay gobolka waxana uma qaban jirin hadeera ridaha u sii laabtay waxaas wax macquul ma mana qaadan karo awal nabadgelyada iyo nidaamkayga anaga iska ilaahay baa haysanay iminkana ku sheegayna oo ka codsayna waliba inaad bandowga naga qaatid bandowga waanu ka xunnahay annaku xaq uma lihin mucaarad ma nihin iskidhanada dhacayna ilaahay baa keenay Muuse Biixiyow fariinta aanu ku soo dirayna waxa weeye xaq uma lihin bandowga aadna saartay 3 bilood dadka ka mudan saar annaku ma mudnin haddaanu nahay gobolka Sanaag
waa in si degdegana loo ka qaadaa bandowgaas aad dib ula noqotid guddiduna waynaanay ansixin intaasaanu ka codsanaynaa tvga star haddaan ka hadlo xaaladda degdega sabab bay ku timaadaa halkaasna kama muuqato sabab gobolka sanaag lagu saaro xaalad degdega arrintaasi si kale inoogu muuqataa waxaanu leenahay madaxweynaha dib uga noqo arrintaas annagu haddaan nahay bulshada reer gobolka sanaag waxaa jira dad shaqaysta waqtiyada aad ku soo rogtay bandowga ma maciishadooda loo hayaa mise bandowgaagay ku soconayaan cashuurkeena iyo gobolkii waa xidhaynaa isma galaan tallaabadaa dib loogu noqdo waan leenahay insha allahu tacaala 28 sannadood ee Soomaaliland jirtay xukun military maynaan arag munaasibna ma aha xilligiisina lama joogo sida muuqata hore gobolada iyo degmooyinka way ugu dhici jireen shilal noocan oo kale ah marka hore waxaan taxsiidaynayaa askartii ku geeriyootay og agteeda waxaanu ka soo horjeednaa oo cambaaraynaynaa in waa lagu degdegay baanu leenahay arrinkaa isagaa madaxweynuhu ku degdegay haddaba baarlamaanku madaxweynaha caqligiisa aragnay baarlamaanka baanu eegaynaa iyana caqligooda waxaanu leenahay baarlamaanku dad fiican weeye dad iska hubiya weeye waxaanu leenahay iska hubiya waxaa la saarayaa xukun degdega annagu xukun degdega ma rabo maana arag Soomaaliland ma rabo xukun degdega may gelin dhibaatooyin ka badanna way dhici jireen waana la xallin jiray bulshada Soomaaliland waxaan la matalaa baarlamaanka codka baarlamaanka waxaan ka codsanaynaa in uu naga joojiyo xukunkan degdega ah